iyadoo adduunyadu inta badan ay shaki xoogan iyo walaac ay ka qabaan daaweynta dhirta ee lagu daweeyo in badan oo kamid ah cudurrada dunida ka jira ayaa haddana dhinaca kale munaasabad lagu maamuusayo heerka ay ka marayaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya isku daweynta dhirta waxaa lagu qabtay magaalada Nairobi taasoo haddana lagu soo beegay maalinta loogu dabaaldego had iyo jeer maalinta daaweynta Afrika waxaana munaasabadan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Nairobi iyo kuwa kale iyaguna ka soo hayaamay dalka Soomaaliya kuwaasoo iyaguna ku soo bandhigaya inta ay socotay munaasabadaasi farsamadooda aqoonta ay ku aadan isku daweynta dhirta waxaana Soomaaliya uga qayb galay Dr. Maxamuud oo isagu ah maamulaha isbitaalka Al-Hidaaya Herbal ee ku yaala xaafadda Islii ay Soomaalidu degan tahay inta ay socotay munaasabadaasi waxaa lagu arkayay madax ka tirsan dawladda waddanka Kenya oo iyaguna muujinaya dareenkooda ku aadan sida ay iyagu u taageersan yihiin ama u arkaan isku daweynta dhirta haweeneydani waxay mas'uul ka tahay qayb ka tirsan dawladda waddanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi iyadoo kala soo qayb gashay madaxdii halkaasi ka soo qayb gashayna sida iyo fikradda ay dawladda Kenya ugu taagan tahay taageeridda isku daweynta dhirta inta ay socotay munaasabadaasi ayaa Dr. Maxamuud oo isagu ah dhakhtarka Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay halkaasi uu ku soo bandhigay farsamadiisa aqooneed ee ugu heerka sareysay waxaana hadaladiisa kamid ahaa inta ay munaasabadaasi socotay marka waxaan maanta u fadhiisanay African Herbal Day waa maalin oo adduunka dhan ay ka jirto dhirta saacadee dhirta waxa la yiraahdaa dadka badankood waxay yiraahdeen dhirta waxyaabo badan oo qaldan baa ku jirta laakiin Ilaahay waa u saxay hadda alxamdulillah anagu waxaan ku shaqeynaa Al-Hidaaya Herbal Clinic waxaan ku shaqeynaa qaab fisiotherabiya ah qaab waxaan ku shaqeynaa toobin ah qaab dhireed ah alxamdulillah marna Al-Hidaaya waxay ka dabar goyn doontaa caalamka ilaa idinkiis waxay ka dabar goyn doontaa waxyaabaha stroke iyo shayaadiinta dadka dhaxgalay ilaa idinkiis marka taasna dawladda ilaa alxamdulillah waxa aad iyo aad oo howlaha oo Al-Hidaaya ay shaqada ay wado waxa caalamka inay gaarto waxa howlahaas uga wakiil ah oo u wado alxamdulillah Sheekh Cabdiqani iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ay ku soo badanaysay dalka Soomaaliya waddanka Kenya isku daaweynta dhirta ayaa haddana imika waxay u muuqataa inay bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa ku nool waddanka Kenya ay si toos ah u aamineen arrinta isku daaweynta dhirta waa kan Dr. Maxamuud oo isagu ku guuleystay inuu ku daweeyo isku daweynta dhirta fanaanka caanka ee Soomaaliyeed Cabdi Tahliil Warsame oo isaguna Universal TV uga warbixinaya arrintaasi dadii qoys ku sheegeen dhaqaatiirta dibadiyo kuwa kale oo doodeena ayaa eeba ugu daray gacantiisa daawo doctorku caadi ma waa laga dambeeyaa dhammaan dhaqaatiirtii ka soo qayb gashay munaasabada lagu maamuusayay maalinta dhirta Afrika ayaa iyagu waxay ka sameeyeen in dhirta wax lagu daweyn karo iyadoo haddana sidoo kale qaababka wax lagu daweynayo mararka qaarkood ay ku kala duwan yihiin markaan tusaale u soo qaadano Dr. Maxamuud iyo laba kale oo iyagu dhaqaatiir oo halkaasi ku sugnaa oo muslin ah waxay wax ku daweeyaan sida ay u sheegeen telefishinka caalamiga Universal Physiotherapy toobin casri ah iyo sidoo kale daawo dhireed taasi oo muujinaysa inay mararka qaarkood habku wax loo daweynayo ku kala duwanaayeen dhaqaatiirtii goobtaasi munaasabada isugu yimid laakiin tani waxa la dhihi karaa waa markii ugu horeysay Soomaalidu ka soo qayb galaan munaasabado lagu soo bandhigayo heerka tartanka aqoonta caafimaadka ay adduunyadu ka sabaynayso Cabdiweli Ibrahim Garyare Universal TV Nairobi